for the Somali federal government. Just now I listened very attentively to the presentation made on the strategy. And I also share the feeling expressed by others that this will contribute to baahinta istiraatiijiyadda qaran isku xirka xiriirka warbaahinta ee dawladda federaalka Soomaaliya waxaan si dareen leh u dhageysanayay soo jeedinta istiraatiijiyadda waxaan idinla wadaagayaa dareenkayga iyo wixii ay muujiyeen mas'uuliyiinta isku dayga dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay ku doonayaan in nabad iyo xasilooni ay ku soo celiyaan dalka waxaan ognahay in Soomaaliya iyo Shiinuhu uu ka dhaxeeyo xiriir iyo walaalnimo waqti dheer soo socday muddo 10 sano waxaan ahayn taageerada ugu xoogga badan Soomaaliya ee dhinaca fursadaha iyo munaasabadaha laba geesoodka ah ee ururada iyo beesha caalamkaba 10 sano waxaan taageeraynay dadaalada Soomaaliya si nabadda iyo xasiloonida loo soo celiyo gaar ahaan xagga iclaamka warfaafinta iyo xiriirka waxaan soo dhaweynaynaa tallaabooyinka uu qaaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya si loo soo celiyo amniga iyo xasiloonida maxaa yeelay waxaan ognahay in amnigu muhiim uu yahay balse amnigu kaliya ma xalin karo mashaakilka taasina waa sababta aan u tixgelinayno isku dayada dhinaca amniga horumarka iyo tan ugu muhiimsan oo ah dadaalada isku xirka xiriirka waana tan sida weyn loogu baahan yahay haddaba sidee bay muhiim u tahay istiraatiijiyadda qaran isku xirka iyo xiriirka maanta anigu kuma talagelin in aan jeediyo khudbad maxaa yeelay waxaan nahay dad wax wadaagaya oo walaalo ah waxaana idinla wadaagaya casharo haddaan dib ugu laabto Shiinaha iyo wadadii adkeed ee uu soo maray Shiinuhu wuxuu leeyahay taariikh dheer waxa ay ahayd beeraley kumanaan sano beeraley leh cilmiga beeraha waa ay garanayaan in aanan ku fiicnayn inagu isku xirka iyo xiriirka waxaana lagu yaqaanaa waa deganaan shaqo badnaan iyo dishibliin manihin dad lagu yaqaano hadal badnaan iyo inaan iska hadalno uun hadalka balse dunida maanta waxaa la galay faci iclaamka wararka waana shayga ugu dambeeya ee lagu soo gaarsiinayo waana kan ugu muhiimsan xiriirka wararka balse Shiinuhu wuxuu horumar ka sameeyay nolosha dadkiisa iyo dadka kale ee aan tabarta lahayn ee dacalada adduunka jooga taasi oo marka la eego aan ku guuleysanay to improving the livelihoods of its people and all the other vulnerable people throughout the world but compared with what we have achieved certainly I don't think we have nagu shaqo fiican kama aynan sameyn dhinaca xiriirka informationka tani waxa ay cashir u tahay Shiinaha waxaana filayaa in sidoo kale ay ka faa'iideysan doonaan casharadaasi Shiinaha waana sababta aan u aaminsanahay in warbixinadu iyo informationku aad muhiim u yihiin waxaana laga doonayaa in aan shaqeyno sidii shaqo loo qaban lahaa si hadalka ugu hadalno oo u yahay mid la jaan qaadaya waxa aan ka shaqeynayno waxaana ay noqonaysaa sida saxda ah oo ay bulshadu ku wada xiriirto gudaha iyo dibadda taasi ayaana idinla wadaagaya waxaan u hambaleynayaa saaxiibada Soomaaliya iyo istiraatiijiyadda waxaana idin rajeynayaa guul